waddanka inaan cudi ka noqdo aan ku noqda waxaan aaminkana ku qabaa ragga xilka mutaystay oo talada loo dhiibay iyo ragga asagu uu soo dooran doono inay waddanka juhdigooda dhan lillaahi ay ugu wadayaan rag u soo khidmeeyay waddanka ana weeye kaalmaysan doonana khibradooda iyo waxtarkii ay waddanka ku soo tari jireen ama kaalmaysan doona talada iyo la taliska intayada waddanka maslaxadiisa ka kormarinaya wax walba waxaan idin soo jeedinayaa tahniyadeyda iyo mahadeyda ixtiraamka aad ixtiraamteen iyo aaminka aad aaminteen 7 sano aan soo dhaafnay oo xilka waddanku u isaaraa waddanku maanta xorriyada uu qaatay ilaa maanta awqaad tiro badan oo dhib ah oo shida uu soo maray abidkiina waa uu ka soo baxay waqti walba dhibaatada asagoo ay u qowowday oo xoog ka yeeshay oo ku xoogoway kayfiyada demokrasiyada ah ilaahay mahadiisa ayadoo lagu mahadinayo kayfiyada annaga demokrasiyada ah ayadoo lagu mahadinayo ummadda Soomaalida ah rag iyo haweenba oo lillaahi waddankooda ugu shaqeysay ama xaalkiisa ula socotay waxaan hubaa shida walba waddanku inuu ka bixi doono oo uu ka kori doono haddaynu annaga dadkiisa ahu rag iyo haweenba aynu wadajir isu kaalmaysano oo aynu meel iska dhigno oo ilowno xasadnimo xumaan isoo qabid isna oo haddii la daa'imo ama caado laga dhigto dambi weyn waddanka laga galayo oo khasaaradiisa waddanka laga talinayo galad baan idinkaga hayaa walaalayaal waan idinku mahadinayaa inaad 7 sano aan soo joognay oo anigu aan madaxnimada waddanka ka ahaa adduunka aad tusteen inaad bisishihiin waxaan shaki lahayn ilaahay azza wajal inuu dhaqsiyo noo oofinayo qasadka yaga Soomaaliyay walaalayaal inta baan idinku salaamay salaantaydu ha idin gaarto ilaahay ha ximaayeeyo waddanka yaga iyo annagaba Soomaalina ha noolaato